xiisadda siyaasadeed iyo tan amni ee ka taagan gobolka Gedo ayaa soo jiidatay indhaha beesha caalamka kadib markii bilihii ugu dambeeyay uu isku horimaad dhinaca amniga ah iyo mid siyaasadeedba uu ku dhex maray dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland. Dhowaan xubnaha golaha ammaanka oo fadhi ka yeesha arrimaha Soomaaliya waxay walaac ka muujiyeen xiisadaasi. Wakiilka u hadlay dowladda Mareykanka waxay jeedisay baaq ah in ciidamada amniga aan loo isticmaalin loolanka siyaasadeed. diblomaasiyiinta caalamiga ah ee ku sugan magaalada Muqdisho waxay hore ugu baaqeen in indhaha iyo xoogga loo jeediyo la dagaalanka al-shabaab balse aan la isku soo jeesan. haddaba hardanka gobolka Gedo iyo cawaaqibka uu ku yeelan karo hanaanka federaalka ayaa ah mawduuca galka baarista ee toddobaadkan. waxaa burburay hanaankii maamul ee dowlad goboleedka Jubbaland ay ka hirgelisay gobolka Gedo. waxaa dib u dhac uu ku yimid la dagaalankii ururka al-shabaab ee gobolkaasi. sidaasi waxaa yiri madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo ka hadlayay saameynta ka dhalatay khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland ee ka taagan gobolka Gedo. waa la dumiyay maanta mannaqa maamuladii iyo hay'adihii dawliga ahaa oo gobolka ka howlgalay dhammaan albaabada u xiran mas'uuliyiintii mandate-ka lahaa oo sharciyada ku joogayna shaqadii ma hayaan. marka ciidamo qaranka wada leeyahay oo kuwana dawladda dhexe ay mashaariicda siiso kuwana dawlad goboleedka mashaariicda siiso labadaba dastuuri ah baa xabadda isla hor fadhiyo horena u dagaalamay oo isu dilay haddana inay isdilaan qarka u saaran cid kale ah oo gobolka waxa ka jira maanta ka macaashtay waa argagixisada weyn. maxaa xoga eed ka haysaa hadday ahaan lahayd dhaqaale hadday ahaan lahayd ciidamo ee dowladda federaalku ay geysay ciidanku intuu leeyahay dhaqaaluhu intuu leeyahay isbedelada la sameeyay intay leeyihiin baaxadahan? horta ciidanka gobolka ay ku soo biiriyeen oo geeyeen waa ciidan guuta la eg marka ciidankaas kharashkii lagu keenay iyo diyaaradihii la kiciyay iyo midka hadda ku baxaya waa mid Soomaalida wax weyn u tiri lahaa oo ay maartay adduunyada halka ku burburtay. ciidankaana mandate la siiyay waxay yimaadeen dhul nabad ahaa oo 12 sano ka hor shabaabka laga xoreeyay hay'adaha dawladda ka shaqeynayaan baa inta la keenay ku burburiyay cid ku macaashtay ma jirin. ciidamadii ama Jubbaland ay bixinaysa kharashkooda daraawiishtaha ama xooga dalka bixinayeen ama nabad sugidda bixinayeen ama booliiska bixinayay oo maanta shabaabka la dagaalamayay oo furmaha ka baxay oo ayaga is hor fadhiyana marka la fiiriyo waa ciidamo marka dhinac walba laga eego laba guuta aan ka yareen oo gobolkaas ku filnaa. marka xagga xamar marka la fiiriyo dhaqaalaha loo adeegsaday waa dhaqaale fara badan maxaa la dhammaan ciidankaas diyaaradaha lagu keenay wax kastoo u baahdaan hadday maanta u baahdaan hal qori in lagu soo xoojiyo diyaarad baa lagu keenayaa. laakiin mid ka mid ah mas'uuliyiinta dowladda u magacowday degmooyinka gobolka Gedo waxa uu isagu qabaa in dowladda federaalku ay ku saxsanayd tallaabada ay qaaday. cali shariif cabdullaahi waa gudoomiyaha cusub ee degmada Buurdhuubo oo uu magacaabay maamulka cusub ee gobolka Gedo oo taageera dowladda federaalka. dalkan dowladii Soomaaliya federaalka dalka mas'uulka kadib markii maamulka Jubbaland Axmed uu hogaaminayay ay ka amar diideen dowladii federaalka ee Soomaaliya musuqmaasuq iyo dhibaato iyo kaligeystari Axmed Madoobe oo deegaanada dhibaato badan ku sameeyay kana hor yimid shacabkii deegaanka deganaa oo caqabado badan ay kala kulmeen yaa waxaa la go'aansaday dadkii deegaanka joogay inay isku tashtaan dowladda Soomaaliyana ay gacan siiso oo lala dagaalamo lagana saaro hogaamintooda iyo dhibaatada iyo caqabada ay gobolka ku hayeen maadaama dalka ay dowladda Soomaaliya bad iyo bari iyo dad meel kasta ay Soomaaliya joogto ay mas'uul ka tahay aynu hogaansami waayeen waxaa la go'aansaday maamuladii ayaga ay xukuumeen iyo cid u shaqeynaysay in deegaanka laga saaro maamulo cusub oo dowladda Soomaaliya la shaqeeya oo dadka shacabka u shaqeeya oo cadaaladna deegaanka laga dhiso. khilaafkani waxa uu sii xoogoobay intii ay socotay doorashadii hoggaanka ee Jubbaland sanadkii hore taasi oo ugu dambeyn uu ku guuleystay hogaamiyaha xilligan ee maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kaasi oo guushiisa ay diiday inay aqoonsato dowladda federaalku. naqshadaynta qaab dhismeedka siyaasadda ee gobolka iyo inuu ku soo dhawaado dowladda federaalka ayaa soo socotay in muddo ah. 31 bishii August ee sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa dowladda Soomaaliya ay garoonka Muqdisho ka qabatay wasiirkii amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan waxaana lagu eedeeyay inuu galay dambiyo culus. Jubbaland waxay qabashadaasi ku tilmaantay afduub. wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan waxa uu xilligaasi awood weyn ku lahaa magaalooyinka Doolow, Balad Xaawo iyo Luuq oo ay ciidamo badan u joogeen. bishii November dowladdu waxay bilowday inay gacanta u fidiso maamuladii 3 degmo ee Doolow, Luuq iyo Balad Xaawo. dowladdu waxay sidoo kale bilowday in ciidamadii Cabdirashiid Janan uu horseedka ka ahaa la diiwaan geliyo si loogu beeriyo
ciidamada qaranka. intaasi kadibna waxaa si tartiib ah u daciifayay saamayntii maamulka Jubbaland ee degmooyinka la isku yiraahdo Daawo oo kala ah Luuq, Beled Xaawo iyo Doolow oo ku yaala waqooyiga gobolka Gedo. bishii December 14keedii maamulka Jubbaland waxay xilkii ka qaadeen gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji oo ku magac dheer Macallimo oo lagu tuhmayay inuu u janjeero dhinaca dawladda federaalka iyo isbedelada socday. 28 Janaayo ee sanadkan wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan waxa uu si lama filaan ah uga baxsaday guri lagu hayay oo ku yaala magaalada Muqdisho. 3 maalmood kadibna waxa uu gaaray magaalada Kismaayo. 4 bishii Febraayo ee sanadkan waxaa lagu arkay Cabdirashiid Janan magaalada Beled Xaawo. bishii Maarso labadeedii waxaa dagaal culus ka dhacay magaalada Beled Xaawo kaasi oo dhaxmaray ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Jubbaland oo xilligaas uu hogaaminayay wasiirka amniga Cabdirashiid Janan. dagaalkaasi markii uu dhamaaday waxaa gacan ku haynta magaalada Beled Xaawo iyo deegaanada ku hareeraysan la wareegay ciidamadii dawladda federaalka. 23 bishii Maarso ee sanadkan gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji oo hore ay xilka uga qaadeen maamulka Jubbaland balse taageersan isbedelada ay wada dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu gudoomiyaal cusub u magacaabay degmooyinka Beled Xaawo, Doolow iyo Luuq. bishii Abriil 30keedii gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo oo hore ay xilka uga qaadeen Jubbaland Cismaan Nuur Macallimo oo uu heliyo sargaal lagu magacaabo Bakaal Kooke oo dawladda federaalku ay u magacawday taliyaha xasilinta ee gobolka Gedo waxay u duuleen magaalada Garbaharey halkaasi oo ay bedeleen maamulkii magaalada iyagoo xilka ka qaaday gudoomiyihii degmada Garbaharey Iimaan Cadow Kaarshe kuna bedelay Xasan Sheekh Cilmi Faarax. 2 bishii May ee aynu soo dhaafnay waxay labadaasi mas'uuleen sidoo kale u duuleen magaalada Baardheere iyagoo u magacaabay gudoomiye cusub oo lagu magacaabo Maxamed Weli Yuusuf Cabdullaahi. sidoo kale waxaa gudoomiye cusub loo magacaabay magaalada Buurdhuubo oo ah degmada 7aad ee gobolka Gedo iyadoo xilkii laga qaaday Xasan Maxamed Xasan Yare laguna bedelay Cali Shariif Cabdullaahi. gudoomiyihii hore ee Buurdhuubo Xasan Maxamed Cali Xasan Yare waxa uu leeyahay mas'uuliyadda magaalada waxaan ku wareejiyay qof ay keeneen gudoomiye ku-xigeenka iyo taliyaha xasilinta Bakaal Kooke. Jubbaland ay imaanin nidaam kale oo doorasho ama dhicin system kale oo xoog ah oo ciidamada dawladda dhexe la isticmaalayo oo xamar laga agaasimayo gobolkan intiisa kaloo dhanba ka soo dhacay ay ahayd Buurdhuubo meesha ugu dambeysay. systemkaas ay soo gaaray waxaan ku garnaqsaday inta kale oo gobolka ah wixii ka soo dhacay inay jitahay inaan aniga waxba is-hortaaga ku samaynin aan sidaas uga horleexdo. marka taasaan ku qancay sharci iyo sharci ahaansho iyo shaqada sidii looga tagayo ma u qalantaa sidii ay shaqada kaaga dhamaan lahayd iyo midna laba eegi karin mana aan eegin. marka halkaasaan ka mareynaa. waxaan jabaada miyaad la kulantay oo haddii aad wareejin weyda ah ama intaanad wareejin ka hor? mid badan baan la kulmay oo dagaal baaba dhici gaaray inaan islayno oo kala ahadaan ku dhawaanay. horteedna muddo badan waxaa jiray gudoomiyaasha degmooyinka oo dhan baa waxaa looga yeeray xamar waxaana ahaa qofka keliya oo arrintaas ayadoo xamara ku qanci waayey inuu tago systemka loogu yeerayo oo ila qalloonaa daraaddeed. muddadaas iyo hadda markii ii yimid inta udhexayso mar waliba waxaan helayay fariimo inaan isbedel ka sameeyo angalka iyo siyaasadda ama positionkayga liigu dirqinayo ama lii sheegayay. markaan arrinta ayada aniga go-aankaygii ku adkaystayna ugu dambeynta waa tan liigu yimid halkaa Buurdhuubo oo ay sidaa u dhacday. gudoomiyaha cusub ee degmada Buurdhuubo Cali Shariif Cabdullaahi wuxuu galka baarista u sheegay in maamulkiisu ay hoos tagaan dawladda federaalka. walaal wax dhibaatay aan ku xafiiro u geysanay ama iska horimaad oo u geysanay ma jirin. wax laba ciidan oo isor taagnaana ma jirin. meesha ciidamada dawladda Soomaaliya baa gacanta ku hayay ilaa haddana ayagu baa gacanta ku hayay amniga sugay. adi aan u soo laabtay magaalada Buurdhuubo sidaad kula wareegtay bal iga waran ma si nabaday ahayd mise maxaa ku dhaca joog? walaal si nabad oo amniya oo wanaagsan baan kula wareegay. markaba nidaamka degmada Buurdhuubo ka jira dawladda Soomaaliya gacanta ku haysay guutooyin baa deganaa amnigeeda iyo nidaamkeeda hore u sugay. amni iyo nabad baa ka jiray. si nabad baan ku yimid ana si nabad baan kula wareegay xilka. 20 bishii May ee aynu soo dhaafnay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo taabacsan dawladda federaalku waxa uu magacaabay gudoomiye cusub oo uu yeelanayo gobolka Gedo. xilkaasina waxa uu magacaabay Cismaan Nuur Xaaji Macallimo oo horey gudoomiyaal degmo oo taageersan dawladda federaalka ugu soo magacaabay 6 degmo oo ka mid ah 7 degmo ee gobolka Gedo.
galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo taageersan dowladda federaalka waxaana uu ii xaqiijiyey inuu isbedeladaasi sameeyey hase yeeshee kama uusan jawaabin codsigaygii ahaa inuu waraysi rasmi ah siiyo barnaamijka galka baarista. galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray Bakaal Kooke oo ah sargaalka ay dowladda federaalku u magacowday xasilinta gobolka Gedo isaguna ilaa haatan kama uusan jawaabin codsigaygii ahaa inuu waraysi siiyo barnaamijkan. galka baaristu sidoo kale waxa uu la xiriiray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Cabdi Maxamed Sabriye iyo Cismaan Nuur Xaaji Macallimo gudoomiyaha cusub ee gobolka Gedo ee taageersan dowladda federaalka labadooduna kama aysan jawaabin telefoonadii aan u diray. haddaba maxaa saameyn ah ee ka iman kara xaaladda siyaasadeed iyo tan amni iyo weliba isbedelada ka socda gobolka Gedo? su'aalahaasi waxaan hordhigay Cabdirashiid Khaliif Xaashi agaasimaha macadka siyaasadda iyo daraasaadka ee Heritage. habkan Kenya la adeegsanayo oo garabka la saarayo oo Ethiopia la adeegsanayo garabka la saarayo oo markaa ninkii xoogaa yar fursad hela uu isdhahayo maanta tabar leedahay waxaad dhaqaaqi waxaasoo dhan 20-30 sano Soomaaliya xaaladii ku jirta waxay ku jirtaa 2000 baan Soomaaliya siyaasadda kusoo biiray 2000 dowladda artan ka shaqeynay xafiiska rasaaraan ka shaqeynay markaas Gedo dhibaato ka taagneed oo Ethiopian baan qeylo maalba UN security council waxa soo waraaqan qoraynay oo aan ka saar dhahaynay dad Soomaaliyeed ba keensanay kuwan oo ka qeylnay markasta 20 sano ka hor bay ahayd markii Cumar Xaaji iyo Xasan Daahir Aweys iyo waqtigaas ay isku haysteen. marka runtii haddii aan dowladnimada la wanaajin hadba qof baa la lagdayaa haddii dowladda hadda joogta meesha oo federaalka hadda waxa muddo inay gobolka ku cansareyso haddii farmaajo soo noqon waayo doorashada soo socota for example waxaa dhici karta inay setback gobolka u keento oo qolada kala timaada ay iyaguna intuu sameeyay opposite-keeda ay sameeyaan. marka guud ahaan aniga haddaan markaan Gedo fiiriyo guud ahaan Jubbaland Gedana gooni loo fiirin karo waa in Jubbaland la akhriyo Jubbaland gooni loo fiirin karo waa in federaalka la akhriyo beelaha wada dega oo waaweyn waa isku haystaan magaalada Kismaayo qolana ay dhici karta inay isa siisay qolana ay ka samar laadahay waxay u baahan yihiin inay heshiiyaan oo Kismaayo iyo Jubbaland dadka isla dega qabaa'ilku ismada soo galaan culimada soo gasho ganacsatada soo gasho haddaan 23 qabiil oo meesha wada dega iyo kuwa hadda ugu tugtugroon haddii ay heshiiyeen waxaa ka dhalanaysa security councilka in lala aado qabaa'il in laga sheekeeyo oo maaragtay Kenyaati iyo ajaanib kale ka hadlaan haddii marka dib u heshiisiin rasmi ah loo baahan yahay gobolkaas dadka waa ka badan yahay Soomaalidu dhan buu ka badan yahay inay ku wada noolaadaan marka waxaan arkaa in beelaha dega Jubbaland guud ahaan kuwan waa is-haysta oo xilka isku haysta kuwa kaloo ka tira badan ama 3 hadda isku dhagan 15 kala horan oo dhahay annaga mafaraajiin baan nahay waxaan la weydiinay gobolkan oo dhici karta inay root fiican ku leeyihiin ayna ku ajaran yihiin marka guud ahaan dib u heshiisiin bay Jubbaland u baahan tahay. barnaamijkii galka baaristuna waa naga inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun